sanad walba 28 bishan July oo maalintii shalay ahayd ku beegnay dunida oo dhan waxa laga xusaa maalinta ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka dilaaga ah ee jooniska ama cagaarshowga kaas oo kamid ah xanuunada ugu khatarta badan sababna u noqda in ka badan 1 milyan oo qof inay sanad walba dunida dhaafaan hay'adda caafimaadka adduunka iyo dalada isbahaysiga cagaarshowga adduunka ayaa warbixino ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in caalamka oo dhan in ka badan 350 milyan oo qof ay la nool yihiin cagaarshowga gaar ahaan noocyadiisa khatarta ah ee B iyo C sidoo kalena sanadkii u dambeeyay ay dunidan dhaafeen 1.1 milyan oo qof warwarka ugu weyn ee la qabo ayaa ah in sanadka 2040 dadka u dhimanaya cudurkan dilaaga ah ee cagaarshowga ay ka tira badnaan doonaan isku geynta dadka u dhiman doona xanuunada malaariyada qaaxada iyo waliba HIV/AIDS sida ay hay'adda caafimaadka adduunku sheegtay haddaba bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn sanadihii u dambeeyay waxa ugu soo badanayay cudurkan dilaaga ah ee cagaarshowga sababta ugu weyn ayaa ah in aanay faham buuxa ka haysan cudurkan iyo halista uu leeyahay sidoo kale 80% daraasado la sameeyay waxa la sheegay in talaalka aanay qaadan bulshadu Dr. Xamse Aadan Mursame oo kamid ah dhakhaatiirta dhalinyarada ah ee wadankan wax ku baratay oo SAB TV waraysi la yeeshay ayaa sharaxaya cudurkan sida lagu kala qaado iyo waliba astaamaha uu leeyahay cudurkan loo yaqaan dilaaga aamusan waxyaabaha keenaa way badan yihiin waxaana ugu komansan qayb kamid ah fayrasyada waa 5 nooc oo waxa la yiraahdaa A B C D iyo E waxa ugu sii caansan A-da B-da iyo C-da marka eedu inta badan wuxuu ku dhacaa carruurtu u badan yahay dadka waaweyn oo ku dhici kara isagoo saf markuu noqonayo biida iyo siidu dadka oo dhan ku dhacaa u badan yahay wadankeena Soomaaliyeedna aad buu ugu badan yahay isagana waxa lagu faafiyaa amba uu iskaga gudbaa waxa weeye dhacaamada iyo dhiigga bini'aadanka oo labada qof ee kala duwan Allahu musta'aan markay isa soo gaaraan qofkii xanuunka qabay iyo kii kale markuu dhiiggiisa iyo dheecaankiisa kala gaadho sidoo doona waxa ku gaadho irbada ku gaadho dhiig loogu shubay ha ku gaadho hooyadii ilmaha markay dhalaysay ha ku gaadho Allahu musta'aan iyo dadka qaar taatuuga iyo waxyaabahan isku sameeyaan marka la xiiranayo sakiina kala isku mid ah la wada isticmaalo iyo qaar kale oo badan oo inaan halkan ku soo koobi karin oo qaabka kala duwan buu ku faafaa kuwan biida iyo siidu eeda iyo iiduna waxay ku faafaan biyaha iyo cuntada marka inta badan waxyaabo kale oo keeno dawooyin iyo waxyaabo kale oo autoimmune way jiraan laakiin waxa u badan waa fayrasyada eeyga ilaa iyo iida si guud dhamaantood waxay saameynayaan waa beerka markay beerkii saameeyaan waxay leeyihiin calaamado guud iyo calaamado gaar ah oo marka dambe uu muujinayo marka xanuunku sii fogaado marka koowaad qofku sida calaamado durayga oo kale joojooci iyo lafa xanuunkii iyo xumadii iyo waxa soo dareemaya ilaa marka dambe waxa kale dareemaya caloosha oo xagga sare midig inay xanuunto ilaa marka dambe heer marka uu sii fogaado uu gaaro qofkii inuu caloosha aad u barato indhihii iyo wajigii buluug iyo huruud noqdaan calaamadaas marka dambe yimaada ilaa marka qaar kooma ingiliso qaarna ay ku dhintaan Dr. Xamse Aadan Mursame waxa uu sidoo kale la ku dheeraaday khatarta cudurkan leeyahay iyo sida looga hortagi karo isagoo bulshadana u soo jeediyay inay sameeyaan baaritaano guud iyo inay qaataan talaalka ka hortagga ah si ay dilaagan aanay u dhagaalsan sayidkii iyo epidemiologically baaritaanadii ugu dambeeyay markii ururinta sameeyeen WHO hay'adda caafimaadka adduunka waxay sheegayaan in hepatitis B iyo C dunidu imka ay inta qof ay xanuunku haya ay tahay 340 milyan maalintii uu ku dhaco hepatitis B iyo C 8,000 oo qof in ku dhow maalintiina adduunka marka loo eego u dhintaan 3,000 oo qof in ku dhow halka markaad eegto waa wax aad u weyn dhinaca kale markaad eegto sida loo og yahay iyo inta loo og yahay marka la eego 20% ayaa la ogaadaa hepatitis C macniinta dhakhtar la tegay qofka la baaray loo ogaaday Allahu musta'aan hepatitis B-gana 10% ayaa la ogaaday it means waxay sheegaysaa intii kale 10% inta kale dhiman oo intii badnaydna inaan la ogeyn mar haddii aan la ogeyn macnaheedu waxa weeye qofku gooruu soo dhacay oo wadnihiisa intuu cunay fayraskii cunay aan wax laga qabasho aan lahayn in la bedelo mooyaan oo taasna ay aad u adag tahay marka sitinkeena la eego ayaaba jirta marka loo eego adahan dhinac kale marka laga eego waxa la qiyaasayaa 2040 WHO waxay qiyaasaysaa in
uu ka badan doono saameynta iyo waxa uu yeelayo bulshada caalamka ku nool. xanuunada imika ugu waaweyn ee infectious diseaseska ka mid yihiin TB-da, malaria-da, HIV/AIDS oo aad dunida ugu faafay wax badan gaarsiiyay. waxa la qiyaasayaa sababtoo ah isagu uu aamusan yahay bulshada si xoog u galay. saameyntiisuna aad bay xun tahay, aadna dadka u dilaa. xilligaas la qiyaasay in waxba ka badan doono. marka saameyntiisu markuu kala barbar dhigo aad bay u badan tahay, waana ka sii badanaysa. waxay ku talinayaan hay'adda caalamiga ah ee caafimaadka adduunku qof kasta oo bini'aadami horta inuu iska baadho. xanuunka markuu iska baadho haddii uu iska helo uu raadsado dawada. ay jiraan xanuunada biiga iyo siidu kuwa ugu xun ee keenaya inuu beerkii cuno ilaa uu soo gudbo kansar. waa la soo saaray labadaba in dawooyin lagu kantaroolo oo kaniina muddo soconaya. haddii aanu lahaynna waxa kaliya ee la hubo ee wax ka tari kara waxa weeye vaccines iyo talaal. marka qof kasta waxa ku waajiba inuu doonto talaalka. waa sida kaliya uu badbaadada ku dareemayo. ilmo kasta oo dhashana markuu saa u dhasho waa in la talaalo. haddii hooyadii qabtay marka hore la baaro markay uurka lahayd saa markuu dhasho la siiyo. haddii kalena ka hortag buu noqonayaa markuu saa u dhasho waa in la siiyo. marka mar walba waxa ugu fiican ka hortagga ugu wanaagsan waxa weeye in qofka la talaalo. dhammaan dadka kala duwan talaalkina waa la helayaa waddanka iyo meel walba. talabaadna waxa weeye in lagu dadaalo nadaafadda. wada isticmaalkii ashyaada qalabada iyo wixii. waayo eeda iyo iidana waxa keena cuntooyinkii iyo biyihii iyo waxyaabihii wasaqda ka soo gaadhay istaabtay. nadaafadda lagu dadaalo. kuwa kale ee biidaya iyo siidayana lagu dadaalo in la kala ilaaliyo waxyaabo kastoo soo gudbayaan dheecaanada iyo dhiigga labada qof ee kala duwan soo gaaraya ka mid yihiin irbadihii iyo waxyaabihii isticmaalayeen dadkan caafimaadka hawlwadeenada caafimaadku waxyaabahay u adeegsanayaan waxaasoo kalena waa in lagu dadaalaa inay nadaaf ahaadaan qof walba kiisa loo isticmaalo. dadka ugu badan ee la nool cagaarshowgan ayaa waxaa la shaaciyey inay ku nool yihiin qaaradda Afrika, waxaana tiradoodu ay dhan tahay 1.9 milyan oo qof. sidoo kalena 125,000 oo qof ayaa loo diiwaan geliyay dhimasho, kuwaasoo intooda ugu badan ay dhahaayeen dhalinyaro iyo dad waxtar u leh bulshada. Cabdifataax Xared, SAB TV, Hargeysa. maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam. hagarle ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.